taladeeda ugu dambaysa iyo dardaarankayga waxaan ilaahay warsha 5 qof 6 qof inta iskugu tagtiin hal hektaar wad iibsan kartaa iska day 10 qof hektaarkii waxa ku jira Ligeeri ilaa iyo 24 jago hal hektaar haddaad iibsatiin 20 qof 24 qof السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارته أصحابته قالي قيمها إيو قدرين تبضن ملك صدافة الدنيا كجوكتين وحن هذا عن كوسو قلنا هاي تومي شنيلة تومي حي كمنت هاي قبليه هو سيمادة مقالة شنيلة سيدا قبليه قمر مارسة وكله قلبت وحن شوقنا وإسلا هالكا هذا النيش يغيو تومي وهالكا أي مقالة أي أصول سعوتويان 5 سنة كهر مجرين واحد قريئة أما واحد جاقوين وإنتن حالي رهداي قيمة لها لكن ما أنت وحيتها هي تومة هالكا كلية اللي اسمه يمد شالي مرمارتي أحد مرمارتي مركا أي صوت إضلاطي وحي كحكتي بورن أي كحكتي بورن مركا أي صوت إضلاطي وحامانتا صورتا وحامانتا بسل وضبك أي سارين هاي وجوين كيس يدوكا لك لبوبا يو وهالك كلية مانتا دهين لو صو وذا جماضي marka qof kasta oo danaynaya oo raba in uu mustaqbal ka hiigsado ama mustaqbal ka sameeysto meeshan iyada ah wadadii Djibouti iyo darraba isku xidhaysay inta bay maraysaa marka intan oo dhan inta waxa iga dambeeya waxaan filayaa waa ilaa iyo dhowr iyo 20 hektaar ayaan filayaa hadday ugu yar tahay marka qof kasta oo danaynaya in uu intan wax ku soo darsado dhulkani waa dhul dihin weeyaan ama waa dhul bisil waxa loo baahan yahay qof kasta oo danaynaya dhulkiisa qof kasta oo danaynaya mustaqbalka ciyaalkiisa iyo mustaqbalka dadkiisa waxaan u sheegaynaa dhulkani maanta waa raqiis aad iyo aad u jabaya وحبد فرنا ويان دولكي كلا أوردن way soo dhamaadeen dirdhabe ayaa soo gashay oo ku soo fidaysa dirdhabana waad garan kartiin cid ay dabada ku wado cid ay riixayso qoomiyadihii kale ee Itoobiyaanka ayaa dhulkan u soo yaacaya sababta ugu soo yaacayaan waxa weeyaan dhulkoogii buuro ayay noqdeen dhulkana wuxuu noqday dhul cidla ah oo dadka dega ay aad u kooban yihiin ay aad u yar yihiin waxaan u sheegaynaa qof kasta oo afka aan ku hadlayo fahmaya luqadda aan ku hadlayo fahmaya ujeedada iyo danta aan ka hadlayna fahmaya waxaan u sheegaynaa maanta tani way kugu baahan tahay ee waxa laga yaabaa bari inaad adigu u baahatid waxa laga yaabaa adigu bari inaad intan aad u soo hungurootid لكن أتجاري كري ويديد وتجوين كري ويديد وتلا جود وتلا جار وتلا عد كستأو لقطة أنكو هالليو عد عن هالليو يقرنيان حن إلهي فرصة ذهبية أيام أنت تعالى فرصة ذهبية هدي عاد أبا هنت هاي آد بالوقوف ضدين قفكي مال قشانية maalgelin wada isaga warkiisu miisku dul yaalaaba oo aad ba ugu fudud tahay waa loo fudaydin mar aan wareysanay mas'uuliyiinta degmada Shiniile magaalada Shiniile waxay noo sheegeen in qofkii maalgelin wada aad loogu fudaydinayo loona dhib yaraynayo qofka kale aan la hadlay waxa weeyaan qofkii kale ee raba isagu inuu iibsado qofkii kale ee raba inuu dago deegaan ahaan uga baahan waa lagu fudaydin ciidaa doontid ahaw meesha doonti ka soo jeed
taasi waa iga talo waxa weeyaan maanta halkani aad iyo aad iyo aad iyo aad ba u jaban tahay wallahi way jaban tahay maanta laakiin berri sida ay noqon doonto ilaahay baa garan booran waad aragteen sida ay noqotay iyo sida ay u buuxsantay iyo sida dhulku u noqday maanta booran inta ugu badan ma goyn kartid ma gaari karaysid dhul badan oo sidana ayaa jira oo sida diinley sida tuume oo halkan ah sida maxaa la yiraahdaa jeedane cadde jeedane madoobe malkaajabti wixii dhul Soomaali oo dhan ah oo buuraha intan ka soo xiga way yihiin way bisil yihiin waa raqiis waliba mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad baan igu celinaya war qof kasta oo danaynaya dhulkiisa inuu wax ka qabsado waa ku diyaar si gaar ah qofkii raba inuu gobolka city wax ka sameesto wallahi waa lagu la rabaa waa diyaar waxyaabo badan ayaa diyaar ah oo diin inta anigu hadda aan joogo gobolka waxyaabo badan ayaan la kulmay waxyaabo badan ayaan arkay wax badan ayaa maxaa la yiraahdaa la rabaa in la maal gashado sida hoteelada way u baahan tahay shinile way u baahan tahay in kastoo dhowr hotel hadda ay socdaan haddana way u baahan tahay hadagaala way u baahan tahay eeshaca way u baahan tahay maxaa la yiraahdaa dambal way u baahan tahay biki way u baahan tahay way u baahan tahay maxaa la yiraahdaa erar way u baahan tahay dhulkiinu wuxuu u baahan yahay maalgashi ta kale ee hadda dabka saarana ni sheegayeen waxa weeyaan qofkii u baahan in uu sameeyo beer waata ugu fudud maxaa yeelay beerta iyada ah ee laga sameeyay hadda gabi iyo xaarey waxay noqdeen Ethiopia halka ugu wax soo saar fiican imika ahaan waxa lagu tijaabiyay basal timaad حب انت lagu tijaabiyay intaasina basashii waxay noqotay basasha ugu tayada wanaagsan ugu waaweyn ugu udgoon ugu macaan ay noqotay Etoobiyada ayaa inta ka qaadatay wax kale wallahi dad aan waraystay oo kamid ahaa dadka beeraha sameystay waxay ii sheegeen 6 bilood ayay basashu ku soo go'daa 6 bilood ayay ku soo go'daa waxaan galiyay iga yiri 200 ayaan galiyay oo 4 qof ayaan ku galinay buu sheegay hadda waa 200 oo kun oo bir 4 qof aan ku galinay midba koto ma bixinay waxaan ka macaashnay buu yiri 800 waa garan kartaa inta u dhaxays farqiga u dhaxeeya 200 iyo 800 waad garan kartaa inta la macaasho waad garan kartaa qofka sanadii ama groupka ama 4 ha ahaadaan ama 5 ha ahaadaan ama 6 ha ahaadaan ee isqabsada ee sidaas sameeya waad garan kartaa sanadii inta ay ka faa'iidayaan laba jeer bay u soo go'aysaa 6 bilood iyo 6 bilood biyuhuna ka gabi ahaan ceelasha way foobay leeyihiin waxa la ii sheegay 8 iyo 40 ceel inay ka dhisan yihiin oo qodan yihiin oo ceelashu la xiri kari waayay oo sida iskaga maxaa la yiraahdaa iskaga durdurayaan xaggan xaaray hal ceel baa ka qodan laakiin halka ceel ayaa u dhigma 40 iyo 50 iyo in ka badan oo ceel maxaa yeelay qawdiisa ceelka ayaa laga seexan kari laayay iyo awoodda uu leeyahay marka halkaas hadda aan taabtay waa halkii ugu hooseysay waa qofka gashado weeyaan 200 oo 4 qof ah qofkii inta in ka badan gashada in intee la ag buu qofkaasi faa'iidi karaa in intee la ag buu ayuu maxaa la yiraahdaa 6 bilood ama sanadii ku dhufan karaa qofkii aqli leh ama dadkii dhaqaalaha bartay way garan karaan marka waxaan ilaahay mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad walaalayaal dhulkiini waa inii baahan yahay dhulkiini waa inii baahan yahay maanta dhulkiinu gacantiina ayay ku jirtaa
ama gacantiina ayuu maanta dhulkiina ku jiraa laakiin waxaa dhici karta maanta maalin kale oo tan ka duwan fiidiyogaas aan maanta duubayo wuxuu inii noqon doonaa markhaati iyo marag ayuu inii noqon doonaa sababtoo ah war waxaa socda sidaa ay u socdaan hadday u sii socdaan ood ininkuna sidaa hadda aad tihiin aad sii ahaatiin hadalkayga u fiirsada waxaa socda hadduu sidaa oo hadda uu socda oo u socdo ood ininkuna ahaatiin sidaa hadda aad tihiin wax badan ayaa isbedeli doona magaalada iyada ah ee Dirnabadii la yaqaanay ee hore way soo baabaaday waa la iskala yimiday halkan bay socotaa waa Toome buurtii Toome ee halkan ahayd ayaa Dirnaba joogtaa dhanka kale Malkaajabti iyo maxaa la yiraahdaa way isku xidhmeen oo way buuxsantay xaggan kale Booran ilaa iyo intan soo maray ilaa iyo Diinley ilaa iyo maxaa la yiraahdaa إيشاق جيدنا لبدي جيدنا عادي جيدنا مذوبة لبدي يبغى يسوى دافتي درنا بحقا وحي أسي دافتي ملكاجت وين دافتي أو إله هورصة أيها لسلق علي مركا قف كستي أو ضنينية قف كستي أو الربع إنه يسوي كفائدة سنفتيس دتكيس أو فائدة كو هذا ربتي إن المال قشتت ويكون فرنت هاي وليبوا على جوف وذايدين حتى دولكي baa lagu siin حتى دولكي ayaa lagu siin maalgashiga aad ku sameyn lahayd waxa lagu siinay halka adigu aad jeceshahay baa lagu joogsan oo dawladda ayaa mas'uuliyadda qaadatay laba hadii aad rabtid in aad degtidna waa lagu fudaydin oo dhulka ayaa hadda raqiisa taladeeda ugu dambaysa iyo dardaarankayga waxaan ilaahay warshan qof lix qof inta isku degtiin hal hektaar waad iibsan kartiin iska day 10 qof hektaarkii waxa ku jira Ligeeri ilaa iyo 24 jago hal hektaar hadaad iibsatiin 20 qof 24 qof waad karaysiin waana ka faa'iideysiin marka hadalkan ama fiidiyogan inta baan ku soo koobaya oo walaalkiin Cali Dhaqan oo inileh dulkiina laga faa'iideysto maanta ayuu inii baahan yahay بريسي هذا وبهن دون أنت نسوي إما دون فيديو قال لماذا واحد نقتل نصيدا إيوه أمانة الله وحنشوفنا وتومي شنو له